سلسك بلا سلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله maanta oo taariikhdu tahay 1 Oktoobar 2022 sida media laga wada maqlay ama madaxdu wada sheegtay ama cid wali baanta Soomaaliya og tahay waxaan halkaas ugu nimi inaanu wadacno shahiid saaxiibkay shakhsiga ugu dhow buu ahaa anigii ugu dhow geesi buu ahaa wuxuu ahaa shumac soo baxayay oo dhalinyarada da'diisa ahi u ahaa fiyooro soo socda wuxuu model u ahaa 2 milyan oo dhalinyaro oo xamar joogta ayaa farxaan oo kale waxaa maskaxdeeda ku soo dhacay markii high schoolaadka imtixaanaadka dhammaadeen oo 27,000 oo arday ay imtixaan galayeen uu amni ku soo dhameeyay oo isaga kor u qaadayeen waxaan rabaa inaan la hadlo ciidanka booliiska Soomaaliyeed inaan la hadlo waxaan rabaa qof kasta oo booliiska Soomaaliyeed darajo kasta iyo fadhi kasta ka tirsan yahay inuu noqdo farxaan oo kale waxaan ugu magac daray xeradan aan maanta joogno oo ah xarunta ciidanka Haramcad laga bilaabo maanta waxaa loo bixinayaa ama loo bixiyay ama aan ku dhawaaqayaa xarunta Haramcad ee Generaal Farxaan magacaas qaadan doontaan magacaasaana ugu imaan doontaan si magaciisu uu u noolaado isaga iyo intii la halmaashay daraaday ugu dambeysay halka wada joognay wuxuu tusayay ciidanka dhintay uu sameeyay kaarta uu sameeyay yiri hebel magaciisii isaga iyo askarigii la socdayba gabadha xogeynta hadda waxay ugu lahayd waxay ku noqonayaan tira intay ii sheegtay labadoodii aan ku darayaa bay tilmaantay ilaahay ha u naxariisto shakhsi ciidankiisa jeclaa oo ciidankiisii ilaa shalayto sarkaalkan waxa lagu gartaa ciidanku xukumaa laga gartaa midna waxa la ilaahay baa na dhaafiyay midna ciidankii si aanu maaraynaanu garan weyno ciidankiisa jeclaa madaxdiisa jeclayd shacabkiisa jeclaa magaalada xamar laga jeclaa ilaahay ha u naxariisto آمين